dhigan rabaa insha allah. Yes, maasha allah, soo dhawow. Ra- farax faraxsi yare. Faraxsi yare. asxaabay ii warrama xaaladda meel xunay maraysaa. Waa la imaqlaa soo maaha, maadaama iphone igu jiro waa la imaqlaa soo maaha. yaa mise codkayga waa weyn yahay, cod weyn haddii uu maaragtay iphoneka aan waxba layga maqlaynin waa iska bixinaa, dhegeyga waa ka bixinaa intaa gelinaa. haddii la imaqlo waa ku maqalnaa idhaha insha allah. waa ku maqalnaa idhaha insha allah. maasha allah, soo dhawaada sheergareeya asxaabay, sheergareeya. halaha yaro oo ku jiro sheergareeya, halaha yaro oo ku jiro tuurtuura ay know inay subax tahay. xaaladda aaday u adag tahay. wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. xaaladda muqdisho aad bay u adkaatay, hadda aad bay u adkaatay, aad iyo aad. sheergareeya asxaabay, sheergareeya. waxaa idin leeyahay muqdisho waa arkaysaan maanta, wadankii maanta dhibaatadii loo horseeday waa aragtaan maanta sida go-aanka lagu gaaray. laxjaceelka dhibaato badan uu keenaa, ogtihiina. laxjaceelka dhibaato badan uu keenaa. haddaa laxjaceel aa keentid oo macangej aa noqotid aa ummadaadi aada u naxin, dhibaatooyin badanaa ka dhalanaya. waa tan hadda dhibaatadaas ka dhalatay. laakiin waxaan ogahay halkii qof oo naga dhinta farmaajaa naga dilay, anigtaasaan leeyahay. halkii qof oo naga dhinta, halkii qof oo dhibaato gaarta waxuu farmaajo ka teliyey waaye. yaa waa wuxuu farmaajo ka teliyey. dadka qaarna hadda waxay leeyihin hawiye maxaa loo baryaa hadda? hawiye maxaa loo baryaa? meesha hawiye ma taagne, meesha sharciyaa taagan, hawiye ma taagne. idinka balaayadan iyo hawiyahan iyo qabiilkan idinkaa keeno wax ku daboolaaye. yaa hawiye hadduu hadlana maanta sharcigu ka hadlay, maaragtay. hadduu dagaalamana sharcigu u dagaalamay. uu dhahay wadankii waa lasoo hayn jiray, wadankan waa soo hayn jirna annagee. ya madaxtinimona waa soo haynay. maxay tahay waxaan? ya mar kastaba farmaajoa qaladka iskale. si kasta u dadabool adiga, si kasta ugu garaaw, si kasta maaragtay wadankii wax kasoo qabta dheh. laakiin sharcigiyaa meesha yaallo, sharciga ayaa meesha yaallo. ya qofku markuu madax yahay waa inuu maaragtay waxyaalo badan ka fikiraa oo dadka u naxaa. uu dhahaa war wadankan waa lasoo haayay, raggii sharcigii wadanka lagu waday kuwad. laakiin haddaa ka leexatid ilaa ay hadda wuxuu wadaa meermeeri iyo waxaa lagu raadinayaa maaragtay in dadku ay wax sameeyaan. hadda kolley xaaladda waxay u adag tahay. waxaan la hadlayaa badbaado qaran. adigan xaaji qansiinka la wareeganayo looma baahno, maaragtay. xaaji qansiinkan aa la wareeganaysa looma baahno. tala keen oo maaragtay ha lagu dhawaaqo, maadaama rabadaan lagu jiro qof kasta is ilaalinayo, rabadaankan isku ilaalinayo. dembi ha gelin, laakiin dembigaas oo dhan farmaajaa noo keena. inaan rabadaankii hadalno, inuu wadanka rabadaan qalqiil galo, inuu ma laga fikirin waxaan oo dhan. ya ma laga fikirin. marka aad aga xumahay maanta, aad iyo aga xumahay. mar labaad inay maaragtay muqdisho ay gelgelato, mar labaad ay cabsi gasho, mar labaad because of laxjaceel. wax kaloo meesha yaallo ma lahan, laxjaceel unbaa meesha yaallo. waa marsiin karaa, taas lee meesha taallo. dadkaa wax badanaa marsiitan waa marsiin karaa, ha laisku dhamaado. ya hadduu run sheegayo waa tanaasule loo ku hayaaye. hadduu run sheegayo maadaamaas wax ay tahay, xerada afsiyoonim iska xaaradeey oo dhaho kaaleya waryaada kaaleya. wadankan dagaal uma rabna, cadowna ma rabna inuuna soo dhex galo. hadda cadowgi asagaaba u bareeray. cadowgii asagaa hadda maanta keenay oo yidhi kaalmeeya. cadowgii hadda asagaaba nolol ka raadiyey, uuna khudbeyna. haddana khudbadiisi iyo siduu wax u sameynaya isma laha. waa two different thing. cadow yaa naloo soo jiidin, shisheeyuuna soo gelin, cadowgana soo gelin.
isheegayna soo gelin cadow ma rabno yoona laga faa'iidaysanin u dhahaa bad laakiin maanta cadowgiyaa keenay oo wacday oo u tegay hataa u safray wallaahi farmaajo si kasta oo maaragtay madaxweynenimada aan kugu sharfeyno toogtaan waa ku dhex bareeqatay toogtaan soomaali waa iska hor keentay toogtaan asxaabey ka waran haddii uu sharcigii waddanka yaalay uu farmaajo u ku dhaqi lahaa ka waran oo doorasho uu diyaarin lahaa uu ka fikiri lahaa waxaan dhan ma dhici lahayn cabsidaan dhan ma imaateen ya hadduu doorashada waryaada kursigan shalay la ii dhiibay maasha allah 4 sano saan kusoo hayayba waa soo hayay haddana doorasho diyaar ha loo noqdo xerada ha la isku diyaariyo xerada asluuni ha la isku diyaariyo hadduu dhaho kala gooy xerigan kala gooy maanta xag iyo hawiyena waxay ayaga ahayn laguma tilmaameen laakiin waxay ogaataan sheekada hawiye markaa idinka u dhigteen buu hawiyahana idiin macneeyey hawiyenimo idinkugu macneeyey because idinkaa u dhigteen idinkaa sharciga intaa kasoo leexateen aa dhahdeen hawiyaa wax dhimana hawiyaa saan yeela sharciga maxaa idinka indhexeray sharciga maxaa idinka indhexeray meesha sheekada hawiye ma taagni maxaa loogu gediyey hawiye saan hawiye waa saan hawiye kan waay hawiye waddanku dimi raba hawiye intuu ka baxay hawiye saan waay hawiye waa ceegow hawiye saan ma samayn lahay adiga sharciga ah kasoo leexatay adoo sharciga u jeedo handadaad u jeedo oo waa marsiina u jeedo laxajeceel adoo u jeedo oo ninkan wuxuu samaynayo xaq inay ahayn adoo u jeedo maxaa hawiye ugu bedelay ya hawiyena ma kafta maayahe adiga saa u tiri leh hadalka lagugu dhigay sidaa adiga u tiri aa lagugu dhigay laakiin waxaa ogaataa deep down hawiye inuu u dagaalamaayo sharciga waddanka yaalla xoogna wax laguma raadiyo xoog wax laguma raadiyo haddaad tiraahdo xoog waxaan ku raadinaa oo sharciga aa ku tilaabsatid tanaa imaanaysa askin dhatirin ha laisku baabaa imaanaysa bar ninkaanayto marka ugu talagalay in laisku baabao oo ugu talagalay annaga loo dadaboolina alla daaroodku siyaasi badanaa aqli badanaa especially hadda daarood oo dhan kuma tilmaameyno waa nin shaksi ahoo oo hunguri ku jiro oo le waa marsiin karaa kulli xaaladda idiima sheegaya maanta xaaladda muqdisho xalay ilaa iyo hadda waxaa ka socda kulleyt waa la socotiin ma aragteen waa la socotiin inay gelgelanayso bal laakiin yaa keenay inay dhibaatadaas oo dhan yaa keenay dhibaatadaas adigoon hawiye iyo heblo iyo madax shalay waddanka soo haayeen aada faragashanin yaa dhibaatada keenay ya dhibaatada yaa keenay taasa adiga ku anficaysa haddii kale ani waa la yaabaa haddaa soomaali say wax ka tahay soomaali say wax ka yihiin dadka ummadaanu say wax ka yihiin ummadan sharciga iyagoo u jeeda qabiil ku bedelay ya ninka iyagoo u jeedaan farmaajo inuu isku baabi'iyo rabo isku baabi'i waa dadkan isku baabi'i maxaa iga gale waa the same things siyaad barasameeyey the same things ya marka ani waxaan la hadlayaa ragga musharaxiinta ah waxaan la hadlayaa ragga ayagoo sharci ku taagan dhulka lala galayoo magacyo badan loo bixiyey waxaan la hadlayaa badbaado qaran ayaan la hadlayaa hadda ramadaanaa lagu jiraa ramadaankana waaba dhadhamaada hadda ordooda ku dhammaanoyaa sidaan waxaa laga bedelo ninka waa ka garleedihiin sharci baa ku taagan tihiin xaaji qisiintaana iskarta a ka bixisada loo ordaysiin intaa naga daysaan madaxtinimo ha lagu dhawaaqo madaxtinimo ninkaa meel haysta male sharcina kuma dagaalami karo labadii sanana waa gubataa labadan sanoo meelaha ula ordaay waa gubataa waxaa soconaynin waaye sharciyan haddii la fiiriyo waxaa soconaynin farmaajo maanta waa laga garleeyahay aad iyo aadaa looga garleeyahay aad iyo aad haddaad tiraada waddankan aniga waddankan sharciga ku dhaqnaa baa wax ka bedelayaa haddaa la imaatid ya taa haddaa la imaatid haddaa taas la imaatid ya
filistar waxaa ku salaamaya saaxiib seeta ya ibraahim jaamac ku salaamaya soo dhawow walaal soo dhawaada idinkoo dhan maasha allah soo dhawaada waa rush hour hadday hadasho iska hadle yana wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xaaladda maanta muqdisho ayaan ka hadlaya xaaladda ay marayso iyo ninkan talaxumadiisa bal fiiri talaxumadiisa soomaaliya shisheeye gacanta loo gelinin uu kuleeyahy laakiin asaa gacanta u gelinaya shisheeye ya war nabadaa wax lagu dhamaystaa haddaa anaga nabad wax lagu dhamaysan waayo soomaali la afgaran waayo ma balaayadaanayso anaga aana afgaranaynin baa afgaranaysaa magaaladaana anaga afgaranayna haddaa muslimkii iyo soomaalida afgaran weyn ya intay wax ka qoransan yihiin waxay wax ka qoransan yihiin ninka diidan soomaalinimada ninka diidan raggii shalay madaxda u ahaa madaxtinimada ku wareejiyey ninka ka cararaya soomaali oo shisheeyaha u cararaya oo saas 2 sano ku raadinaya in loogu daro oo gaalada u cararaya no soomaali waa kasoo garbixi kartaa soomaali kasoo garbax kala ayagaa ku dhiibeen ya maanta inay shisheeye una soo faragashto dadweynaha uu soo faragashto yaa keenay aabihiina cunay indhaha kala furay yaa keenay hayaha ku camcaminina saas wax laguma raadiye saas wax laguma raadiye hawiisaan lagama raadiye ya hawiye hadduu boodo uu dhaco waxay ku taagayeen maanta sharciga soomaaliyeed laguma tumanaayo 2 sano xooga ah ma yeeleyno sharciga sida loo soo maraayo soo mar war doorashadii aaway inta adiga aad hawiyo aad dhihin waxaa la isku haysta waa doorashadii xageegiis ma laqdo hawiye ma ku laqdo miyaa mise hawiye ku meermeerinaya dadka sheekada hawiye ma taagno maanta xaaladda si xun bay maraysaa waa ka xumahay you don't know how sad I am ya qabti dhacda maalin hore markii oo garoonka aadan cadda laisku bursanayay aniga I don't surprise wax kastoo wadanka maanta ka dhaca farmaajo yeelay saadama jaamac soo dhawo saaxiib wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wax kasto oo wadanka ka dhaca maantadan ya dhibaato kastoo wadanka soo gaarta qof kastoo la dilo hooyada hataa la dilay oo iyadana dareerta hooyada ah oo intaasoo caruur ka tagtay dhibaatadaasoo dhan halka jaf hadday ka dhacdo muqdisho ninkaanaa keenay ilaa ninkan dagaal uu diyaar u yahay maxaa isaga indhitiraysaa ninkan dagaal buu diyaar u yahay dagaal buu diyaar u yahay nabad ma rabiyo nabad hadduu rabiyo xerada afkeenuu tegi lahaa xalanuu tegi lahaa u dhihi warkaaleya iskugu imaada doorashaa diyaar u ahay waxaanu isaga waa iscasilay uu meelaha ka dhadhahaaya ani waa la yaabay geemku cayaaraayo weli war geemkan waa isku layn doonaa war geemkan colaadaa ka dhalanaysa war geemkan wax badanaa soo ciyaartay ya geemkan wax badan aa soo ciyaartay waa soo waday weli geemkiyaa ku wacad weli waxaa leedaha waa ismarsiin karaa inta qof oo dhimanaysa inta qof oo welwel ku jiraan inta qof oo cabsi ku jirto shaqo kuma lahan wallaahi hadduu shaqo ku leeyahay maanta inay dadku u badbaadiye dadku isagu wici lahaa siduu asaga u leeyahay waa iscasilay isuu bedelo buu wuxuu dhihi lahaa ya asxaabay eygaan bay igu korwareegan oh my god eygaanaysa ama i cunaa يعني أكيد السوري قاعد تيجي ما أبي قبتار كذا اللي أبيه يعني هو ريجن ويا so
markaas xaday afkii baa juuqda qabay maanta soomaaliya inay maanta saa noqoto adigoo u jeedid yaa aniga waxaan leeyahay action ha qaadeeno musharaxiinta dadka u taagan xaqa u taagan oo u jeeda in doorashadan la meermeerinayo oo u jeeda inay wax kasta ma aragtay ay qalad yihiin waxaan leeyahay badbaado qaran xaaja qamsiintaana askarta a ku buuxinaysa inaa la wareegaysiin maahane xal la imaado xal adag la imaado kulli xal waa la imaateen hadda say ku socoto okay waay hadda wax u haray male hadda ninkaa wax u haray ma laha waa u dhammaatay wuu liqliqanooyaa yaa fursadiis unbuu meesha ka qaadanaya yaa maanta magac xumuu ka tegey magac xumo waaba tegay laakiin magac xumuu ka tegey dhibaatadaanoo dhan dadka usoo jiiday waa dhaqaajiye ninkaan waa dhaqaajiye sixuna wax ku raadiyey allah iimaanka dadka alla maxay iimaanka dadka qaarkood wallaahi dadka qaarkood hunguri jecela dadka qaarkood yaa hadda wuu tegaye muxuu ka tegey fool xumuu ka tegey fool xumo ayuu ka tegey yaa waxaana dhan wuu ogyahay haddana wuxuu isticmaalaa makasaan wax kastoo nala dhaho wuu ogyahay wax kasto ay soomaali dhahdo wax kastoo nala dhaho dhigaha jalaq uma siinayno saasaan wax ku wadeynaa waa marsiin karnaa taas iska dhaadhici weliba iska dhaadhicinooya waa marsiin karnaa 2 sano hadda la liiqanooyaa 2 sano na iyaa cuna hadda waa laga soo horjees jaalla waxaa la dhahay kuma waxaan dadaad meeshaa ma taalo dadku freedom inay lahaadaan waaye freedom ay wax ku doortaan freedom ay dadku cadeeyaan freedom kooda ha ka qaadin inta ninkaan nin dad freedom ka qaadaya waaye you know freedom annaga kulleyto intaan dacwo dhigi karno intaan waraaqo qori karno intaan meel gaarsiin karno waa gaarsiinay kas waa wax qalad ah okay waa wax qalad wuxuu ku taagan yahay ummadeennan inay isku dhamaadaan ma rabno annaga dagaal waa soo aragnay ka waran ninka noo soo celinaya hadda dagaalka yaa ifraxay waa ku salaamaa soo dhawow ifraxay seetahan fiicanta welcome captain yeah captain ya magacaada cabed hadda u isbeeliyo ingiriis ahaan cabed waaye bas soomaali ahaan is different axmed nuur aniga hadda nuurkaas meeshaas yuuga waxaan gelinaa nuur waa ku jirto ingiriis ahaan yeah you know ninkaas xadow in salaamaya xaaladda aaday u xun tahay subaxna way ii tahay waana soomanahay dembina ilaahay hanaga haayo laakiin wax runaan ku hadlaynaa xaaladda aaday u qasan tahay yaa xaaladda aaday u qasan tahay ayaantaana asxaabay ayaantaana youtube-ka aan camirtay youtube-ka iga soo follow gareeya waqtiyadan oo kale waa ogahay waa waqti ma aragtay very quiet ah anaaba quiet codkayga u jeeda inaan quiet ahay aan jiif ka soo kacay oo u soo kalahay balooni saaxiibayaal waa idin salaamaya saaxiibayaal inta sharciga taqaana inta xaqa taqaana inta inuu farmaajo qalad ku taagan yahay og yaa weligiina ha ka leexanina xaqa haddaad ka leexatid adiga aad xaqdarro aad qof ugu hiilisid adna waa kuu dhamaatana waxaa tahay male bani-aadanimada qofka muxuu ku yahay bani-aadanimada wuxuu ku yahay qofka inuu xaqa u dagaalamo inuu dhaho waxaan waa qalad war waxaan waa laskaga hor imaan karaa war waxaan waa laisku baabiin karaa war waxaan xalka kuma jiro war waxaan soomaaliya isaga hor imaanaysaa war saan ha laloo dhaamo marka aniga waa iska ogaa inuu dhib ka imaanayo haddaad tiraahdo waa ku dheganaanaa
kaba soo qaad dhibaa ka imaanayo you know simple yeah simple haddaa maanta aniga halkaan aan aan ku ixcishto maanta dhan kawar haddaa ku ixcishto maanta dhan haddaa mar laki noqday aan weyn gareeyo maanta wadankii aan madax u noqday ya haddaan dhaho mar labaad dadku waa marsiin kartaa sharciga waa ku tuman kartaa waa ku tumatay mar horebe ya waa marsiin karaa war aqligiisa dhan waxa waa marsiin karaa waaye kusoo koob halahaas war waa marsiin kara wuu og yahay inay qalad tahay wuu og yahay inay soomaali iska hor imaanayso wuu og yahay inuu dagaal ka dhacaa in laga dagaalamayo waxaa dhan wuu og yahay but laakiin waa nin dhahay I don't give a shit animaa ku dhimanayo waa nin go-aankaas gaaray so anaga maxaa sugaynaa anagana waxaan samaynaynaa ayadoo soomaali isku dhammaanin oon la isku baabi'in baan ma aragtay sharcigeena aan kula dagaalamaynaa haddaba miis waxaan soo saarnay wallaahi xaaladda meesha ay marayso haddaba shabaq wuu kusoo dhacay majeda raggeedii aa jooga raggeedii sharciga soo haayey oo sharciga yaqaanay oo soomaaliya horumar u rabo ya baa joogaan lax jaceelkaas rag badan ba way geli lahayd rag badan oo madax soo ahaayeen iskama dhiibeen madaxtinimada saasay u dagaalami lahaayeen oo dhihi waa marsiin karnaa laakiin waxay ogaayeen haddaan taas samayno amaa layska hor imaadaa ya soomaali hadday dhismaysaa wadanku hadduu dhismaayaa in dib loo celiyo ma rabno ya ragga shalay waxay ma aragtay ay go-aan ku gaareen war soomaali ma dhammaynayno war soomaali hadday soo kabnaysaayo waa wadan dagaal soo maray waa wadan dhibaato soo martay waa wadan dadkeedii meel kasta ku daadsan yihiin marka waxaan u baahannahay xal aan ma aragtay aan doorashada aan ku dhammayno si soomaali nabad u noqoto laakiin ninkii yidhi hirgeliyaan gelina this time aqli xumaa ninka hadda dhahay hirgelin intuu u socdaa wuxuu u socdaa lax jeceel dadkii diiday way arkoyn iyagoo arkoyn waa lax jeceel waa kursiga anigaa sii haynaayo waa kursiga qof kaloo hayaa la waaye aawe dadka freedomkoodii aawe doorashadii aawe qofkii kaleeto ilaahay u qoray haddii doorasho la rido ya adi kaligaa ma lihid meesha waxaan waa kursiga soomaaliya ka wada dhexeeyaa sharcigana ha ku tumanin iimaankana ha iska qaadin intaasoo qof oo la dilaayo intaasoo balaayo iyo intaasoo dagaal iyo balaayo kusoo hoos dhuumanayaan war wadanka hadduu qalqiil galo tuugo kastaa kusoo hoos dhuumanaysa inaad ka ilaalisid waaye nabad haddaa wax ku dhamaysid nabad aad ku dhamaysid hadda maanta bal fiiriya asxaabey ninkaan kursigu ku dhegan yahay laakiin hadduu dhihi lahaa sharciga anaa maro waaye doorasho inaan diyaariyo waaye soomaali sharcigooda waa inaan sharciga u yaala inaan maro waaye waxaan dhan imaan lahayd nabadaan ku soomi lahayd nabadaan ku soomanahay iyo welwelna ku soomanahay nabadaa lagu soomi lahaa asagana faatixadaa loo mari lahaa wixii uu fududeyn lahaa kii kaloo ilaahay u qoraa soo fariisan lahaa laakiin ninka meesha wax ku haayo wax lax jeceel ayuu farmaajo meesha ugu dhegan yahay dhakab wax kale uguma dhegana because haddaa fiirisid madaxtinimada waa lasoo wada heeyay madaxtinimadii waa lasoo wada maray ya asaga malab iyo maleel uma keenin wadanka dagaal hadda u keenay mar 4 sano u qabsadayna dagaal waa dhammaan waay qarax waa dhammaan waay ya marka waxa waaye kabtankii adeerkiis u taagan yahay qabow badanaa dadkaradiyaa la gelayaa Australia asxaabay I don't give a shit ninka aqliga xumo oo sida farmaajo kale u dhaqmaayo oo farmaajo ugu hiilinaayo xaqdarrada dadkiisu inay dhammaadaan rabo aniga wuxuu iga qaadaayo malahan iyo wuxuu iga taraayo malahan waxaan ogahay inaan sharci ku taaganahay oon xaq ku taaganahay uu farmaajo u qaldan yahay farmaajo si xun wax ku raadinayo iimaanka intuu ka tiri si xun wax ku raadinayo oo raggii Soomaaliyeed inkiraayo ya raggii Soomaaliyeed inkiraayo oo shalfish noqday weliba shalfish markaysan shalfish waxa waaye qofka ma aragtay intaasoo abaal loo galay madaxtinimadiisa la sharaxay
intaas la soo gaarsiiyey oo soomaali kusoo jeestay oo dhahay waxa iga galay malaha ha baabeeno. laakiin anaga hadda soomaaliya waxaan kusoo wadnaa inaan hargeyso aan habi la noqono. soomaalidu way kala daadsan tahay. puntland ay isku xirmato, jubbaland ay isku xirmato, hargeysa ay nagu soo xirmato, jabuuti ay nagu soo xirmato. ummadaheeni dhanaa naga maqan. ninkan intuu taagan yahayna sasa u kala daadsanaaneenaa. nin xun haddii meesha uu haayo dadkas u kala baxaayo u kala daadsanaanayaan. marka intaas isku soo celin rabnaa, waana isku soo celinaynaa. dadkii soomaaliyeed baan qalbigooda burcad marinaynaa. ninka hadduu colaad yahay uu si xun wax ku wadana waa la iska leexiyaa, waana iska leexine. hadda wuxuu haaya male, shabaquu ku jiraa shabaq. hadda annagaa ka reynay. guul baan u rajaynayaa ummadda u dagaalantay. guul baan u rajaynayaa ummaddii maaragtay labalabadaas diidan oo ka dagaalantay. meel fiican ay maraysaa maasha allah. meel fiican ayay maraysaa. weliba waxaan leeyahay saa kusii wada. ma garateen dagaalna waddanka ha ka ridina. geemku idin cayaaraya ha sugina. ninkan weli geemu idin cayaara ha sugina geemkiisa. salaadisay kuu qabataa loo tukadaa. colaadda idinkama bilaawin, xaq baa u dagaalamaysaan. colaadda waxaa bilaabay ninka kursiga ku dhegan. ya ninka kursiga ku dhegan ayaa colaadda bilaabay oo dhahay soomaali ha isku dhammaato. ya soomaali ha isku baaba'do. maxaa iga galay aniga kursigaana u dagaalamaya, 2 sanaa u dagaalamaya oon sharci ahayn. ya ilaa addoomiyaa u tegayaa, ilaa gaaladaasa u tegayaa, nafka raadinaya. waa ninka saas ku talinaya waaye. siyaa shaati loo gelinaya waaye. de ilaa oraxnay soo baxdo, oraxaad soo baxayso hawowgaa nagaa baxee. annaka intaan ka dagaalami karna waa ka dagaalamay. ya inta haddaan soo fadhiisanna hataa waxyaalo badanaan ku maqannahay. waxyaalo ka importationaan ku maqannahay. ma garateen asxaabey banaanaan fadhiyaa. banaan markaan fadhiyana waa inaan geesaha iska fiiriyaa wax nagu soo socdo. asxaabtaan wada eeyey wataan. adigana muslaa tahay, iskaafkaagaa wadataa. marka dadaal waa la muujiyey. ninkaan waa u dhammaatay. 7 qof oo meesha ku jirta sheergareeya, gaarsiiya asxaabta, gaarsiiya. xaaladda meel fiican ay maraysaa. horta shabaq buu ku jiraa. ninkaa shabaq buu ku jiraa oo horta naflacaari waaye maanta. horta taas ogaada. naflacaari waaye maanta. meeluu haysto male. waa faxsharmay haddana wuxuu haysto ma lahan. ninkii dagaal soo raadiyena waa lala dagaalaa. reer muqdishona waxaan leeyahay be safe. muqdishoy be safe. ninaan shalay idiin soo dooranay baa dhibaatada idin keenay. ninkii shalay idin soo doortay oo madax kaga dhignay baa dhibaatada idin keenay. yaa maanta ku fikiraya dhibkaanu loo keenaya? yaa ku fikiraya kursiguu ku dhegaayaa, laxjecladaasaa gelaysa, siyaad barro kaluu noqonaya? yaa ku fikiraya? wax ku fikiraya ma lahan. waxaan dhehayna kolley wuu ka roonaana. atinka waxa loo doortayba oo doorashada loo siiyeyba waxaan lahayn siyaad barro ka roonaan doonaa. wuxuu ogyahay ninkaan inuu siyaad barro waddanku dudumiyey. ninkaan wuu ka roonaan doonaa, wuu ku ficnaan doonaa, wuu u dagaalami doonaa baan dhehaynay. bad laakiin sheekada meesha ma ahan. waxaa waaye waxay noqotay yacni waa fir waa jeans ay dhahaan. jeans ingiriiska waxay dhahaan jeans. waa dhiiggii iyo jinsiga korkiisa ku jiro waaye. ya kabtankii adeerkiisa wadaa. laakiin yaa ku fikiraya maanta waxaa la dhahay siyaad baruu ka roonaanaya. siyaad baraa laxjecladaana gashay. siyaad badaa wadankii uu dhahay dad iyo dhulba kama tegaayo. uu xoog wax ku raadiyey. ninkaan adhoontinka inuu samaynayo saasaan dhehayna. bad laakiin ninkii
kabtankii uu noqday kabtankii wax kaloo meesha yaalla male ninka kursiga u dagaalamaya lax jecliyaa gashay lax jecli ayaa gasho soomaali shaqo kuma lahan ya wax kasta wuxuu rabaa inuu xoog ku marsiiyo waa socodsiinayaa nin kastoo eedeynayaa laakiin waxaan hadda ku ahay maanta hawiye inuu kastay hawiye haddii hawiyenimo lagu tilmaamana dhulkaasaa iskale meeshaasaa iskale yaa haddii hawiyenimo lagu bursado hataa meesha asagaa iskale oo ninkaanay ha dhammaadeena uu leeyahay maanta haddii maanta dadkiisa ay joogi lahaayeen wuu ka fikiri lahaa xoogaa uu dhihi lahaa dadkayga a joogo laakiin dadkiisa ma joogaan taas waay wuxuu asaga uu adkeeyey inay waxaa qalab yihiin uu taagsanaayo dadkiisa ma joogaan hawiyena xoogaha wuxuu dagaalkii u qaadi layahay yacni waxa dhammaanayo waa asaga shamse maxamedey salaamu calaykum abaa isoo tahay ramadaan kariim carabsay ku yihiin adiga see tahay maasha allah ku salaamaya saaxiib waa kula soo hadlaya insha allah xamar iyo muqdisho iga waran muqdishaan ka hadleeya xaaladda maanta taagan ilaahay adan ku nabad yeelo inaa welwel ku nooshihiin oo cabsi ku nooshihiin waa ognahay wax kasta meeshan aan kala soconnaa marka waa laiska celinaa raggan sharciga yaqaano oo sharciga in dadka la dugsiyo diidan oo u soo taagan oo dagaal ka xiga in sharciga dadka la dugsiyo diidan si kasta sharci ku dagaalamayo oo dagaalkan dadka ilaalinayo u fiirsada idinka hawiyaa dagaal wada leedin hawi wadanku ilaalinoyaa dadkiisu ilaalinoyaa haddee intaas layskuma soo gaareen anaa idin dhahay intaa layskuma soo gaareen intaas hawiye madaxiisu hoos u dhigooyaa uu ogyahay dadkiisa inuu badbaadinayo uu ninkaana qaladku taagan yahay laakiin ninka meesha waa laga leexiyay ninka meesha waxuu ka haya ma laha hadda waa u dhamaatay hadda waxaa la gaarsiiyey heer waxaa la gaarsiiyey gaalada uu cararo gaalada inuu u cararo naf ka raadiyo ninkii dhahaya shisheeyo masoo dhexgelin asigayaa shisheeye naf ka raadiyey hadda ya shisheeye naf ka raadiyey uu yidhi labadan sano iyo markiiya waa ku dhawaaqay baarlamaanka waa haddana qaadka dhan wuxuu saaray maxamed mursal ka xaaxaabe maxamed mursalow ya intaan kala soconnaa wax qaladkii dhanba maxamed mursal adigaba qaladka waa ku jirtaa farmaajaha orod ka saxiixayna qaladka wuu ku jiraa intee boobeysaa dhul soomaali waay maxaa u boobe adiga nabadaa lagugu dhiibay maxaa u boobe ya xooggaa wax ku raadinaysa maxay tahay xoog ma adig ku imaatay xoog kuma imaanin doorashaa ku imaatay doorashadana waa lagaa la'yahay adiga xoog kuma imaanin adi haddaa xoog ku imaan lahayd oo dhil xooga waddanka ku qabsaday xooggiyaa wada lahayd laakiin waddanka xoog adig kuma imaanin doorashaa ku imaatay iyo sharaf iyo wanaag baa ku imaatay sharaftaas iyo wanaaggaas haddaa ku ciyaartidna waa lagula ciyaaraa balooniga hadduu bilowdo asxaabey ilmihii weli waa isku leynooyin mogtaa markaa balooniga ciyaaraysiyo anaa isku leysaa horta way hafta warm up aa lahaa ingiriis warm up waa inaa isku leysaa marka ilmihii waa isku leynooyin markay balooniga bilowdo ani waa ka baxaa okay wiilkaygaa support garaynaa marka asxaabey runta ha ka cararina carar haddaad bini aadan tahay oo soomaali sax aad tahay oo qof ilaahay ka baqaaya aad tahay runta ha ka cararin runta ha ka cararina caddeey inuu farmaajo maanta qalab ku taagan yahay inuu soomaali iska hor keenay inuu colaad waddankii ugu horseeday yah adigoo u jeedid ilaahay baa kugu jecel ilaahay maanta wuxuu igu jecelaya inaanan been sheegaynin farmaajo inuu shalay la doortay si sharaf leh lagu doortay yah si wanaag ah lagu doortay waddankii soomaaliya inuu xaq iyo sharci iyo ruul uu u yeelay yah ay doorasho u taallay 4 sano kastaba uu farmaajo ku tallaabsaday uu xoog wax ku raadiyey iyo handadaad dadkii inuu iska hor keenay dadkii inuu dagaal u horseeday maanta muqdisho
midda taalla farmaajaa keenay yaa hawiyaha ku haynina hawiye iimaanka idinka tegiyo hawiye kartida ku jirta iyo aqliga ku jiro iyo aad u quuri la-dihiin hawiye saa u dhahdeen iimaankaa ka tagteene iimaanka isku suga oo ninka qaldan qalabkiisa ninka qaldan oo soomaali isku keenay inay soomaali isdhamayso ku tala jiro oo shaqo kuma lihi dhahayso muqdisho hadday baaba'do runta ka sheega oo ilaahay ka baqa oo dhaha niyahow shalay kursigan waa lagu dhiibay kursigaana qof kastaa iska leh ninkii imaado annaga madax noo ah laga yaabaa mid fiican inuu ilaahay noo keeno oo waddanka wax iska bedelaan oo ma aragtay soomaali dhan nabad noqoto oo hargeysa nala heshiiso oo puntland nala heshiiso oo jubbaland nala heshiiso oo jabuuti nala heshiiso soomaali ee hel noqoto taasaa horumar lagu gaaraa laakiin ninkan waa nin intaasoo dhan colla ah hargeysuuna rabin jabuutiuna rabin jubbaland iyo puntland uu la dagaalsan yahay dadkaas soomaali soo ma ahan soo ummadeeni ma ahan ya marka ninka noocaas oo kale waa laska tuuraa isbeshili meeshuu hadda uu ku rafanaayana uu hadda shabaqa ugu jirana uu ku rafanaayo rabo inuu magac ku yeeshana waa magaalo waa muqdisho waa caasimadii hawiye idinkaa ilaa saa u dhigay ma ogtahay annaka uma dhigin idinkaa u dhigateen sidaa idinka noogu dhigteen annagana idinkugu dhigaynaa ka xaxaabiyahe yaa ka xaxaabiya idinkaa u dhigteen ya ilmahaasay u tareeninayaan midinkasaa hal mar tareeninkaa hal mar inkasaayaa halkaasnaa istaagaa say u tareeninaa arag ilmaha tareeninka saan waa ee sidoo intasee way isku leynayaan waxay diyaar u noqonayaan balooniga inay cayaaraan ma aragtaan way isku leynayaan ma aragteen asxaabey my god ma aragteen si isku kuleynayaan ilmaha marka balooniga weli ma bilaabanin way isku leynayaan dee warming up aan lahaa dee warming up annagana saasaan sameynaa waa inaad isku leysaa inta balooniga aad bilaawday marka soomaaliya waa loo tashtay muqdisho waa loo tashtay ya meesha wax kaloo yaala malaha ninka shabaq uu ku jiraa hadal badan haan ma buuxsho shabaq uu ku jiraa tanna waa lala rabay ma aragteen ninkii laqdabo wado khayaano wado wax isdabamari wado meel ma gaaraayo farmaajo wuxuu waday isdabamaris iyo khayaano iyo sharcigii inuu ku tallaabsado waana laga diiday thank you very much aan leeyahay raggeenii ya raggeenii musharaxiintii badbaado qaran ummadii ku dhawaaqday shabaqay ku rideen shabaq ciyaaraa iga maleysaan wax uu haayo ma leh farmaajo maxaa ceebowday maxaa magaca iska halaysay oo magacii mareexaana u halaysay ya magacii mareexaana maxaa meel ooga dhacday ya ilaa farmaajo mareexaan oo dhan ma wada aha
yah magaca farmaajo mareexaan iyo hawiyena maxaa iskaga hor keentay basiiri wuxuu sameeyey ninkan hawiye iyo mareexaan iska hor keena hata hawiye iyo mareexaan oo dagaalkoodiiba 91kii ay ka nasanin yah yes dagaalkii 91kii dadka iyagoon ka nasanin buu haddana u soo celiyey maanta farmaajo uu ka dhigay arrinta daarood iyo hawiye iyo mareexaan iyo hawiye war waxaa boolshiidka yaa u baahan hadda yaa u baahan waa soo aragnay ilaa dagaal hadduu wax taraayo waana looga baaba'ay dagaal hadduu wax taraayo waa soo marnay waa soo qaxnay waa baaba'nay yah wadanka muqdisho maanta dadka joogana waa dadkoodii dhammaaday oo kulligood wada dabarasta ah oo nolosha inay bedelaan rabaan oo meel kasta business ka furtay oo nabad raadinaya maanta hadduu nin waxgarad yahay yah farmaajo hadduu nin waxgarad yahay wadanka uu gacanta ku haayo hoos u fiirin lahaa uu dhihi lahaa wadankan dhibaatuu soo maray wadankan dagaaluu soo maray ummadaanu dagaal bay soo mareen laxjaceelkan ha u horseedin laxjaceelkan dagaalaa ka imaan karo dadkiibaa iska hor imaan karo dadkiibaa isku dagaali karo bal asaan wax ka bedelay kursigaanayki intaa haysay sharaftaadii siday ragga sharafta kugu dhiibeen sharaftaas ku dhiib wuu dhihi waayey ninkan laxjaceel iyo hunguri buu dhakab ugu dhahay waa idinka tegayaa baloonigaa bilowday laxjaceel iyo hunguri buu dhakab ku dhahay maantana xaaladda muqdisho marayso ya xaaladda maanta muqdisho marayso dagaalada marayaan shabaabka kusoo dhex dhuumanaayo dadka sidna balaayada kusoo dhex dhuumanayso dagaalka hadda la aas-aasay cabsidan faraha badan rabadaankan lagu jiro yaa keenay ani maa keena adi maa keentay ma soomaaliyaa keentay ma badbaado qaran baa keentay ma dadka musharaxa ma keeneen yaa keena aabihii micne yaa keenay farmaajaa keenay farmaajo asagaa keena asagaa ka teliyey asagaa balaayadan ka teliyey uu dhahay waa laisku baaba'aa ma ahee kursigaanan ku dhigaa 2 sanaha laygu daroy 2 sanaha laygu daroy soomaalida intuu ka cararo gaalada u cararay halbiyooy 2 sano iimaankii waxaas waa iimaan darro waaye waxaas iimaan darro waaye qofka markuu dhibaatadaas qabo uu dadka iska horkeenayo uu dadka dagaal u horseedayana soomaaliya waa iska leexiyaa meel haddaa guddoomiye u noqotid ama meel aad guddi u noqotid ama meel aad yinayo wixii dhib keenayo waa inaad tuurtaa familka hataa wixii dhib keenayo waa inaad kaas ka qabataa familka hataa wixii qofka dhibka keenayo waa in la qabtaa marka farmaajo waa in la qabtaa farmaajo hadda shabaquu ku jiraa dhibaatada maanta muqdisho taalana asagaa loo eedaa aniga yaa hore waa idin sheegay waxaa idin dhahay dhib hadduu ka dhaco muqdisho ama dagaal ka dhaco ama qalalaaso ka dhacdo farmaajo aas-aasay asagaana yeelay because waxaan ogahay farmaajo inuu dagaal wadanka ku qabsanin ina wadanka sharaf iyo wanaag loo doortay doorashadii shalayta uu soo mari la'yahay uu handadaad iyo xoog wax ku raadinayay marka aniga waxaan ku hadlaayo dhan carar waa qof been dhahaa no we can't say it waa run banaanka taalla so halkaana idinkaga baxaa maadaama balooniga bilowday xaafadaha igu salaama shantoy abaya waa ku salaamaya adiga iyo carruurtaada ilaahay meesha nabad ha idinku yeelo muqdisho nabad allah idinkaga dhigo idinkana safe ahaada rabadaankiinana insha allahu ma aragtay ilaahay idin aqbalo annagana ilaahay noo aqbalo be safe unbaa idin dhihi karaa be safe farmaajona hadda maanta shabaqu ku jiraa waxba ha ka baqina nabadda saasay noogu soconaysaa asagana shabaqaa lagu riday hadda aniga shabaqaas mar horaa sheegay inuu kusoo dhici doono shabaqaas mar horaa sheegay inuu kusoo dhici doono maantana wuu kusoo dhacay guul baan taaganahay maanta guul because waa idin wada sheegi lahaa but laakiin because of aniga wiilashayda baloonigooda aan firsanayo waa soo gaabinayaa but laakiin banaanka ka maqlaysaan banaanka ayaad ka maqlaysaan ummadaa joogaan maarteen ummadaa joogaan kasii dhegeysta arka maanta xaaladiisa meelay maraysa ninkii farmaajo ahaa shabaq uu ku jiraa shabaq uu rabo inuu kusoo dhaco oo anagana aan sugayno inuu kusoo dhaco buu kusoo dhacay wax uu haayo ma lahan bad laakiin yaa gaarsiiyey shabaqa isaga ku jiro maanta asagaa isku riday ma ogi soomaali kuma riday ya asagaa isku riday ma ogi soomaali kuma riday marka asxaabay
nabadaa idinkaga tegayaa intii igu soo boodgoraysay inta qaldanna waxaan leeyahay waa qalad bay ku taagan tihiin qaladku farmaajo ku taagan yahay qaladkaasaa ku taagan tihiin hunguri jeceel baa idin haayo hunguri jeceelka kasoo leexda yah hunguri jeceelka kasoo leexda iimaanka ha iska qaadina shicib baa tihiin madaxweyne kastoo imaadaa madaxweynihiina ah laakiin madaxweyne ummadda isku diraaya marna ha yeelina madaxweynuhu guriga intuu imaan ka tagay kursi ku dhegaayo marna ha yeelina keligii taliyana marna ha yeelina marka idin dhihi lahaa indhihiina kala furo caqligiina idinkaa iskale qofka maskaxdiisa asaa iskale caqligiisa iyo kartidiisa asagaa iskale laakiin haddaa waxaas adiga caqligaaga caqli kale ku isticmaashid dan adigana waxbaa kuu dhiman haddaa adiga caqligaaga adoo qabo caqli kale ku isticmaashid oo qabiil uu ku qaado oo balaayo ku qaado yana marka halkala idinkaga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaafadaha igu salaama babaay cafiye masaamax rabadankiina allah aqbalo keenana allah aqbalo salaamu calaykum